kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii warbaahinta wadaagsan production oo aad alaaba halkan ka daawan jirteen waa maalinimo sabti ah 7 September 2019 qodobada ugu door karoon ee warkeena maantayna waxa kamida xiisad ka dhalatay magaalada Gaalkacyo iyo Maleeshiya hubaysan oo weerar ku qaaday xabsiga dhexe ee magaalada Gaalkacyo Sheekh Cabdi Xayi oo si ka duwan culimada Soomaaliyeed uga hadlay arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame madaxweynaha koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan lafta gareen oo dhimaya tirada xildhibaanada koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Daahir Aweys oo shaaca ka qaaday xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka Soomaaliya iyo sida wax walba loogu ogolaaday dawladda Soomaaliya oo ka jawaabtay eedaynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo xiriirka kala dhaxeeya Xasan Daahir Aweys Imaaraadka Carabta oo sheegay inuu san doonayn inuu ximaado xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka ururka Alshabaab oo toogasho ku dilay dad badan oo Kenyaan oo ay bas kala dageen askari Sacuudiyaan oo toogasho dhimasho geystay dalka Mareykanka roobab laxaal leh oo dabaylo wata ayaa ka daay deegaanada xeebaha ku teesan ee maamulka PUNTLAND iyo wixii war oo ay kaga hayno ayaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maantay fadlan daawada waxa xasuusiniga ah inaadan hilmaamin subscribe isla markaana aad gambaleel ka furatid si ay markaas ku soo garaan warbixin walbo aan halkaan soo galino ku maadsanida haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan wararka naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa sheegay in saacadii la soo dhaafay maleeshiyad beeleed hubaysan ay weerar ku qaadeen xabsi ku yaala waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi weerarkani oo ahaa mid xoogan ayaa waxa lagu soo waramayaa in sidoo kale ay ka qayb qaateen ciidamo ka tirsan kuwa daraawiishta ee dowlad goboleedka PUNTLAND sida aan xogta ku helnay ragga weerarka fuliyay ayaa doonayay inay xoog ku soo furtaan in lagu magacaabo Cabdalla Axmed Guuleed kaas oo shalay lagu xiray magaaladaasi ninkan ayaa waxa dacwad ka soo gudbiyay wasiir ka tirsan maamulka PUNTLAND kadib markii lagu eedeeyay inuu ka aflagaadeeyay Facebook sidoo kalena wararka ayaa intaasi ku daray in kooxda weerarka geysatay ay muddo kooban la wareegtay xabsiga iyagoo xiray dhaqdhaqaaqa sida ay warbaahinta wadaagsan u xaqiijiyeen ila deegaanka oo ku sugan degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dhanka kalena ma jiro wali wax hadal oo ka soo baxay laamaha ammaanka oo ku aadan weerarkaasi balse saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka PUNTLAND oo ka hadlay xariga ninkaasi ayaa sheegay inay sii dayn doonin ilaa la soo taagayo maxkamadda xaaladda ayaa saaka kacsan iyadoo xiisad ka dhalatay weerarkaasi laga dareemayo waqooyiga magaalada Gaalkacyo Sheekh Cabdi Xayi oo kamid ah culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay arinta muran ka dhalisay ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Sheekh ayaa u cabiray si ka duwan sida inta badan culimada arintani ka hadashay inta badan culimadii arintan ka hadashay ayaa aad u dhaliilay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo qaarkood ku sheegay inuu ku dhacay gaalnimo hase yeeshee Sheekh Cabdi Xayi ayaa ka digay in arintan laga sii diro wuxuuna soo jeediyay in loo wajaho si deganaan oo isku nasteexayn ku dhisan diinteenu waa diin nasteexa hadii dadku khaldamaan waxa loo baahan yahay in si walaaltinimo oo tartiib wax la isugu sheego waa marka la rabo in wax la bedelo balse hadii aan la rabin waa arin gaar ah ayuu yiri Sheekh Cabdi Xayi Sheekh Cabdi Xayi ayaa sheegay in marka hore loo baahnaa in khalad ka dhacay la iska wareysto oo cid khusaysan la weydiiyo kadibna si tartiib ah arinta loo xaliyo annaga Soomaali ayaa nahay in si tartiib ah arintan isku weydiino iyo inaan si kulul wax isku weydiino waxa noo fudud inaan si kulul wax isku weydiino waxa uu sheegay in dhabka Soomaaliya haystay mar walba iska horkeenay isla markaana ay muddada fog aan dhibaatada ugu jirnaa ay tahay inaan mar walba dagaal wax ku xalino Sheekh Cabdi Xayi ayaa sheegay in arinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ay hadda iyo wixii ka dambeeyay tahay arin aan mudnayn in laga sii hadlo sababtoo uu yiri qof gaf ka galay wuu hadlay wuu cudur daartay kana laabtay gafkii uu galay maxaa kale oo loo baahan yahay in laga sii wada hadlo ayuu sheekhu ku soo gabagabeeyay hadalkiisa faafayna dheeraada ayaa ka soo baxaya kulan u dhaxeeya madaxweynaha koonfur galbeed Cabdikariin Xasan Maxamed lafta gareen iyo odayaasha dhaqanka oo ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay kulankan oo saacado badan qaatay ayaa waxa looga hadlay arinta intiisa badan arrimaha maamulkaasi gaar ahaan soo xulista xildhibaanada cusub ee koonfur galbeed madaxweynaha lafta gareen oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la iswaafajiyo dastuurka iyo soo xulista xildhibaanada si loo yareeyo tiradooda oo haddu gaarayso ilaa 149 mudane dastuurka dawladda goboleedka koonfur galbeed
ayaa qeexaya tirada xildhibaanada oo 95 oo kaliya taas oo hadda doonayo in la dhaqan geliyo madaxweynuhu afayeenka odayaasha dhaqanka Malaqdeerow Yacquub Cali oo kulanka ka warbixiyay ayaa sheegay in madaxweynuhu dalbaday inay ku garab siiyaan arintani si loo yareeyo xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya arintani ayaa waxa ka soo horjeeda beelaha qaar ee daga gobolada Shabeellada Hoose Bay iyo Boqol kuwaas oo ka cabsi qabay inay waayaan xubno muhiim ah oo haatan ku leeyihiin baarlamaanka balse waxa socda dadaalo lagu qancinayo beelahaasi Sheekh Xasan Daahir Aweys oo muuqaal cusub soo duubay ayaa ka hadlay xiriirka ka dhaxeeya isaga iyo dawladda Soomaaliya oo uu xiran yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys wuxuu beeniyay in dawladda Soomaaliya adeegsato kadib markii mucaaradka iyo dadka kale ay sheegeen in loo isticmaalo in lagu weeraro dadka siyaasad ahaan ay iska soo horjeedaan dawladda Soomaaliya Xasan Daahir ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay siisay qalabka iyo internetka wax ku soo duubay balse loo sheegay inuusan ku hadlin siyaasadda waxay ugu yiraahdeen siyaasadda ka hadlin waxaan ku yiri siyaasadda ka hadlin saddex sax ma ahan lugii waadiga xirteen adimadiina waadiga xirteen afkiina iga xiray oo qalabka iga qaata ayuu yiri Xasan Daahir Aweys wuxuu shaaca ka qaadeen waxyaabo badan oo aysan haysan dadka kale oo u xiran yahay dawladda isagoo loo ogolaaday sida inuu kula kulmo qoysaskiisa taas oo uga mahad celiyay dawladda xitaa caruur ayaa ay ku dhalatay aniga oo maxbuus ah wuxuu muujiyay cadaadis xooggan oo beesha uu ka soo jeedo uga yimid dawladdu ay qasabtay in waxyaabo badan isaga loo ogolaado mararka qaar qabiil basibu ku wanaagsan yahay ayuu yiri Xasan Daahir Aweys nimankaan u xiranahay waxba igalama dhaxeeyo xitaa ma xiriirno mararka qaar askarta ilaalada iga haysa ayaan iskala macaamila ayuu yiri waxa uu shaaca ka qaaday in mar ay wada hadallo u bilowdeen isaga iyo madaxda dawladda balse ay burbureen kadib markii uu mowqifkiisii ku adkaystay wixii markaas ka dambeeyay aysan dib isku arkin Xasan Daahir ayaa dhanka kale ku adkaystay inuusan weligiis laaluushi lacag xaraan qof ka qaadan isla markaana maanta aysan jirin waxa uu haysto oo dhaqaale ahaan u liito dawladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay eedeynta u jeediyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee inay u ogolaatay in Xasan Daahir Aweys uu ku baaqo dilkiisa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdiraxayir Mariyey oo la hadlay BBC ayaa sheegay in dawladdu aysan wax xiriir ah wada shaqeyn kala sameyn Xasan Daahir Aweys hadalada uu jeediyay arintaasi waxba kama jiraan Xasan Daahir Aweys hadii uu xabsi guri ku jiro xuquuq ayuu u leeyahay inuu telefoon haysto telefoonkiisa ayuu ku hadlay oo hawada galiyay tiknoolajiyada ayaana u saamaxday ee dawladdu uma geen media mana dhihin war soo dub isaga oo arkay in diintiisa la soo weeraray ayuu yiri Mariyey ayaa sheegay in aysan jawaab mudnayn ee eedaynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ah inay la shaqeeyso argagixisada sababtoo ah uu yiri dawladda oo dhan ayaa u taagan la dagaalanka argagixisada Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan leeyahay arrin diin ku lug laayaad ka hadashay dawladdu kuma dhihin hadal oo ka hadal arrin diin la xiriirta kuma haysato waxa ku haysta culimo arrintaana ma ah mid u baahan aftaanimo ee waxaan ku leeyahay isbariyeel ayuu yiri Mariyey arrin diini ah oo aanan ku dirin ayaa culimadu kuga haystay ee qaab diini ah uga bax ayuu yiri Mariyey ayaa ugu baaqay Cabdiraxmaan Cabdishakuur inuu isku keeno guddi culimo ah oo eega hadalkiisa kadibna hadii ay dhahan dib ma lahan uu sidaas kaga baxo hadii la yiraahdana qalad ayaa gasho uu gala masjidka uu toobad keeno wasiirka dawladda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta Anwar Gargaash ayaa sheegay in dalkiisu uusan raadinayn inay iska hor yimaadaan Soomaaliya xiriirka labada dal ayaa xumaaday markii dawladda Soomaaliya ay 8 Abriil qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo Imaaraadku ay ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha ee Mogadishu asaya sheegay Gargaash ayaa sheegay in wali uu furan yahay albaab isku fahmi karaan Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabtu xaaladan waa mid aad u baahan oo diblomaasiyadeed taasi oo ugu jeeyn karta xal siyaasadeed aqli gal ah nabad ah isla markaana la joogteyn karo ayuu yiri wasiirka dawladda arrimaha dibadda Imaaraadka Carabta oo soo xigtay wargeyska heen hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo oo shalay Muqdisho ay ku kulmeen wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Soomaaliya Axmed Ciise Cawad iyo safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Al-Xamadi kulankan ayaa kii ugu horeeyay muddo dhexmar xubno sare oo ka kala socda labada dal tan iyo markii uu xumaaday xiriirka labada dal oo markii hore ku xumaaday xisada khaliijka kadib markii ay Soomaaliya ka diiday Sacuudiga iyo Imaaraadka in xiriirku dhow u jirto qadar ayaa ka sii daray markii dawladda Soomaaliya ay 8 Abriil qabatay lacag ku dhow 10 milyan oo dollar oo Imaaraadku ay ka soo dejiyeen garoonka diyaaradaha Mogadishu toddobaad kadib 15 Abriil 2018 dawladda Imaaraadka Carabta ayaa joojisay tababarkii ay siin jirtay ciidamada Soomaaliya iyadoo ka jawaabaysa lacagta ay qabsatay dawladda Soomaaliya tan iyo muddadaasi ma jirin wax xiriir muuqda oo ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale wali aqbali la safiirka cusub ee Soomaaliya ay u magacawday dalkaasi Xasan Xundubay Jimcaale kaas oo la magacaabay 6 bil ka hor si kastaba hadalka Gargash iyo kulanka Cawad iyo Al-Xamadi ayaa muujinayay inuu jiro isku soo dhawaansho yar dhowr qof ayaa laga cabsi qabaa inay dhinteen kadib markii dagaalyahanada kooxda Alshabaab ay weerar gaari rakaab ah ku sii jeeday magaalada Mandheere xilli uu marayay inta u dhaxaysa deegaanada Kutula iyo Wargudud ee Wajeer taliyaha booliska Wajeer Stephen Encheti ayaa wargeyska Daily Nation u xaqiijiyay weerarkani hase yeeshee ma uusan shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha ah Encheti ayaa sheegay in ciidamada gaarka ah loo diray goobta weerarka uu ka dhacay waxaan xaqiijin karaa in kooxaha weeysan ay fiidkii jidka u galeen oo ay weerar bas ku sii socday Mandheere balse wali ma hayno xog ku saabsan tirada khasaaraha ayuu yiri
kooxda Alshabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkani oo ay ku sheegtay inay ku dileen 10 qof qoraal lagu baahiyay idaacadda kooxdan ayaa lagu yiri kadib baaritaano la sameeyay dadkii saarnaa gaarigan ay u kala qaybiyeen muslimiin iyo gaalo kadibna la galay 10 qof oo la xaqiijinay gaalo ahaayeen qoraalkan ayaa intaasi ku daray in goobta lagu toogtay 10 ruux ee gaalada ahaa iyadoona dadkii kale ee muslimiinta ah la sii daayay weerarkan lagu qaaday baska Madiina ayaa dhacay qiyaastii 5 galabnimo weerarkan ayaa imaanay bil kadib markii Alshabaab ay weerareen saldhigga booliska Djibouti ee Wajeer sida ay halkaasi uga sii daayeen laba dagaalyahan oo ugu xirnaa askari ka tirsan ciidamada cirka Sacuudiga oo tababar u joogay dalka Mareykanka ayaa toogasho u fuliyay saldhig ay lahaayeen ciidamada badda Mareykanka wuxuu ku dilay 3 qof ka hor inta aan isaga la dilin toogashada oo ka dhacday fasal ku dhex yaala saldhigga oo ku yaala magaalada Benencola ee gobolka Florida ayaa waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 8 qof ay ku jiraan 2 boolis oo ka soo baxay weerarku ninka weerarkan geystan ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Saciid Al-Shamrani barasaabka gobolka Florida Ron DeSantos ayaa xaqiijiyay in qofka toogashada geystay uu ku yimid dalka Sacuudiga boqorka Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcasiis ayaa telefoon u diray madaxweyne Donald Trump kuna cambaarayay toogashada waxaa sidaas warisay wakaaladda wararka Sacuudiga ee SBA boqorku wuxuu xaqiijiyay in dambiilaha geystay dambigani aadka u xun uu san matalin shacabka Sacuudiga ayay tiri wakaaladda wararku Trump ayaa qoraal u soo dhigay barta Twitterka ku yiri boqol Tarmaan wuxuu tacsi u diray inuu damqaday qoysaska iyo saaxiibada dhibanayaasha lagu dilay laguna dhaawacay weerarka goobta weerarka oo ka dhacay ayaa waxaa loo ogol yahay oo kaliya inay qoryo ku haystaan dadka sugaya amniga mana cadda sida ninka weerarka fuliyay uu qoriga ku helay mas'uuliyiinta ayaa sheegay inay baariyaan hadii weerarku xiriir la leeyahay argagixisnimo 6 qof oo kale oo Sacuudiyaan ayaa lagu xiray meel u dhow goobta weerarku ka dhacay 3 kamid ah dadkan ayaa la arkay iyaga oo muuqaal ka duubay dhacdada wali ma cadda hadii 6 qof ee la xiray ay sidoo kale ahaayeen arday ka tirsan fasalka ay toogashadu ka dhacday iyana xiriir la leeyihiin ninka weerarkaasi geystay roobab dabaylo wata ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku dhufteen deegaano ka tirsan maamulka Puntland deegaanadani ayaa waxa ay dhacaan ama ku yaalaan xeebaha maamulka Puntland waxaana halkaasi ka dhacay sida lagu soo waramayo roobab xooggan oo dabaylo wata inkastoo ilaa hadda aan wax khasaare nafeed la soo warin haddana roobka oo ay la socoto dabayl xoog leh ayaa ka dhacaya Garowe Boosaaso Bareeda Ayl Garacad iyo inta badan magaalooyinka ku teedsan badda cas iyo badweynta Hindiya isgaarsiinta magaalooyinka ay kamid tahay Ayl ayaa hadda maqan iyadoo aan la ogaan karin xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ku nool deegaanadaasi oo maalmihii la soo dhaafay loo diriyay dignino arrintan la xiriirta inta badan tuulooyinka dhaca xeebaha ayaa la sheegay in xoolo ku noolaa uu daad qaaday sidoo kalena doomo kalluumaysi oo xeebta badda la yaalay la tagtay dabaysho magaalada Garowe roobka ka bilowday xalay 5 saac habeenimo ayaa ka daayay ilaa saaka halka Boosaaso ay sidoo kale tahay daawadayaal intaasina waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon ee warkeena maanta aan idinku soo tabinanay warbaahinta wadaagsan inta aan warkaan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxa idinku ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo